Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada filimkeena maanta waxaa ka bilaabanayaa gabar maraysa meel mugdi ah. aad ayay u cabsanaysaa, intay carar isdhahaysana way dhacaysaa. habeen walba maadaama meeshan ay soo martana way ka cabsataa run ahaantii. kadib wiil ayaa u imaanaya, wuxuuna ku dhahayaa soo istaag, waxaan rabaa inaan ku caawiyo. aadan waxay ku dhahaysaa iska bax, isagana wuxuu ku dhahayaa ha iga cabsanin, soo istaag, gacanta ayuuna usoo taagayaa. aadan shaatigiisa ayay qabsanaysaa, isagayana dawraacaysaa. aadan waxay ku dhahaysaa halkan habeen walba miyaa soo martaane? asigana wuxuu ku dhahayaa mar walba ayaan soo maraa. kadib waxay ku dhahaysaa mahadsanid, halkan ayaan deganahay, laakiin aadad u mahadsantahay, waxaan rabaa inaan wax ku sii istaag. asigana wuxuu ku dhahaa maxaa waay? kadib shukulaato ayay siinaysaa, waxaan ku dhahaysaa berayaan oo balane. kadib asiga meesha ayuu kasoo tegayaa. aadan run ahaantii aad iyo aad ayay ugu farxaysa, taleefon ayayna ku hadlaysaa. habeenkaas kadib habeen kale wuxuu arkayaa iyadoo sii socoto. asigana wuxuu isdhahayaa hadhow way cabsanaysaa, dawraac. aadan dukaan ayay soo galaysaa, maamada dukaanka joogtan waxay ku dhahaysaa soo dhawow. laakiin maamada markay wiilkan soo dabraacay gabadha aragtaati ayay u naxaysaa. kadibna biyaha ayay gaari weynaysaa, asigayaan usoo qabanayo. aadan waxay ku dhahaysaa mahadsanid. kadib ayadoo soo bixi rabta ayaa maamada istaajinayso, waxayna ku dhahaysaa gabadheeda wiilkaas kusoo dabraaca aniga ma bogin, iska ilaali, waxaa laga yaabaa inuu tuug yahay. asigana hadalkaas ayuu maqlayaa, meesha dhan wuu iskaaga soo tegayaa. aadan way soo dabraacaysaa, waxayna ku dhahaysaa istaagno, inaad iga tagtid miyaad rabtaane? kadib gacanta ayay ka qabsanaysaa, waxayna ku dhahaysaa wehelayaad ii tahay ha iga tegin. kadib gacanta ayuu iska fujinayaa, wuuna ka cararayaa. aadan waxay ku dhahaysaa waa ku baryaa istaag, gacanta ayayna xoog ugu qabsanaysaa. waxayna ku dhahaysaa duqda hadalkeeda ha u bogin, adiga qof wanaagsan ayaa tahay. asigana wuxuu ku dhahayaa mahadsanid, wuuna qoslayaa. aadan way dawraacaysaa, gacanta ayayna xoog ugu qabsanaysaa. ugu dambeyn habeenka labaad ayadoo cararaysa ayay ku kordhaxaysaa, wuxuuna ku dhahayaa xagee u cararaysa? ayadan waxay ku dhahaysaa caadile. habeen kalena banaanka gurigooda ayay ku sugaysaa, maadaama ayadaysan habeenkii bixin. waxay isdhahaysaa asigoo halkan soo mara ayaad arki doontaa. kadib waxay arkaysaa asigoo xaggeeda usoo socdo. kadib markuu arkina ayada meesha fadhiisan way kasoo cararayaa. aadan waxay ku dhahaysaa istaag, waabigiisa socotay maxaad usoo laabataa ayay ku dhahaysaa. kadib dhaawac wejigiis ku yaal markay aragto waxay ku dhahaysaa ayaa kusoo garaacayne, maxay taa dhaawacan tirada badan? kadib waxay ku dhahaysaa daarweyn haddii sheegin waa iska baxayaa. kadib wuu qabanaya, wuxuuna ku dhahayaa meel ha iga aadin, anigeeda waxaan isdhahay ayada xaggeeda wehel kasoo dhigo, laakiin adiga waabiga cararaysaa ma iska baxa waayahe. kadib labadooda way isku soo dhawaanayaan. habeenada kamid a meeloo joogaya u imaanaysaa, waxayna ku dhahaysaa sidee tahay? asigana wuxuu ku dhahayaa waan fiicanahay. waxay ku dhahaysaa waxaan rabay inaan kuu sheegto. asigana isla markii wax kale ayaa maskaxdiisa kusoo dhexaysa, iyadayuuna u dhawaanayaa. wuxuuna ku dhahayaa aniga yaab adiga kaa helaybo, ma aqaan sababtan kaaga helayne, waxaan rabaa mar walba inaan kuu soo dhawaado. aadan waxay ku dhahaysaa habeentaba waa dhalashadeyda miyay imaanaysaane? kadib uu fikira, wuxuuna ku dhahayaa waayahay. ugu dambeyn habeenkii xiga wuxuu usoo gadayaa hadiyad, wuxuuna imaanayaa gurigooda, laakiin wuxuu arkayaa dad badan oo hadiyadayaal qaali ah ay siinayaan. maadaama dadka iyada u dhawaayeen hadiyadayaal qaali ah u keenay, asiga wuu xishoonayaa, meeshan wuu iskaaga laabanayaa. aadan isla markii ayay fahmaysaa maadaama ay dareemayso. ugu dambeyn naag meesha joogta ayaa u dhiibay, wuxuuna ku dhahayaa xibibaadeedeeda waaye, anigan waan kasoo gaari waaye u geey. habeen kale asigoo shaqaynaya ayay u imaanaysaa, waxayna ku dhahaysaa maxay tahay xafladeeda ma imaanin miyaane? waan ogahay inaad imaado, laakiin waa kasoo carartay. anigana ilmaanan kulmin, laakiin giftigaaga quruxda badan wuu isoo gaaray. kiyaabo meesha taala ayay isdhahaysaa u dhiib. asigan wuxuu ku dhahayaa gacmaha quruxda badan maxaad iskaaga wasaqaynaysaane? ayadan way ku xanaaqaysaa. ugu dambeyn habeen kale waxay arkaysaa asigoo soo socdo. ayadan way la yaabaysaa, waxayna ku dhahaysaa maxaa kugu dhacayna maanta? maxay tahay gacantaada dhaawac ayaa ku yaalo? yaabay qofka mar walba sidaan kuu garaaco. asigan wuxuu ku dhahayaa mii daaweynaysaane? ayadan waxay ku dhahaysaa haa dabcan, guriga ayay keenaysaa, daawooyin ayayna u marinaysaa. asigan wuxuu ku dhahayaa mar walba sidaan miyaad ii daaweynaysaane? ayadan waxay ku dhahaysaa su-aashadii weydiinaysid maxay tahayne? ukaada ayay ku dhahaysaa waan kuu soo laabanayaa. asigana gacanta ayuu xoog ugu qabanaya, kadibna asiga ayay kusoo kordhacaysaa. kadib wuxuu ku dhahayaa wax walboo dhow aniga ha iga fogaanin. ayadan waxay ku dhahaysaa ma anigaaba u baahan inaan kaa fogaado. habeenada kamid ah waxay arkaysaa asigoo lagu qaylinayo. kadib way xanaaqaysaa, waxayna isdhahaysaa kasoo celi, laakiin gabadha kale ayaa ka celinayso. nin ku qaylinaya taleefon usoo dhacay, wuxuuna ku dhahayaa adiga shaqadaada si fiican uma qabsatid. kadib ayadan waxay ku dhahaysaa ha ku qaylinin, wax walba uu kaa sameeya aniga yaa kaa xaal marinayo, asigana hala hadlin. kadib gacanta ayay kasoo qabsanaysaa, wayna soo wadaysaa. waxayna ku dhahaysaa nimanka xuxun ma mudna in loo shaqeeyo. asigana wuu soo jiidayaa, hab ayuuna siinayaa. wuxuu ku dhahayaa wax walba anigaan ahay,
mise wax walbaan u baahan adiga si degdeg ah ku dareentaa. Kadib haweenada kamid ah laba xabo shukulaato ayaa soo gadaya sida iskula cunaan, laakiin niman ayaa ka hor imaanayaan. Maskiinkan si xun ayaa loo garaacaya maadaama uu asiga aad u maskiinsan yahay. Kadib ayada ayaa ka hor imaanaysa waxayna ku dhahaysaa waad faraxsaneed maxay tahay xanaaqan hadina. Kadibna waxay ku dhahaysaa gacantaada maxaad ku sidaa. Kadibna waxay arkaysaa labada shukulaato. Kadib shukulaatada qaada ayuu ku dhahay laakiin ayada gacantiisa ayay xoog ku qabsanaysaa. Siida ayuu ku dhahayaa laakiin ayada kama yeelayso. Waxayna ku dhahaysaa soo bax. Maanta laga bilaabo ma rabo adiga in lagu garaaco mis qof kale xaaladaada oo xumeeyo. Asigan wuxuu ku dhahayaa aniga xitaa diyaar u mihi. Kadib waxay ku dhahaysaa soo baxay soo raac. Waxaad ku farxad galiya ama aad ku farxdid ayaan ku tusinayaa. Waana waa inaad ku farxi doontid. Asigan wuxuu ku dhahayaa maxaa waay. Kadib gacantay ka qabanaysaa waxayna ku dhahaysaa soo bax. Aniga yaa ku soo tusinayo. Kadib meel ayay soo istaajinaysaa. Waxayna ku dhahaysaa waan fadhiisanayaa u kaadi. Markay fadhiisatana waxay u taagaysaa gacanteeda. Waxayna ku dhahaysaa gacantaada ii dhiib. Gacanta markuu u dhiiban waxay baraysaa sida loo ciyaaro. Asigana sida nin hore ciyaartu yaqaano oo kale ayuu u ciyaarayaa. Kadibna waxaan aragnaa labadooda tookadan inay isla qabsadeen. Haweenada kamid ah meesha ka shaqeynaya imaanaysaa markay waasan qamraya isku daldalaysaa. Saaxiibteedan way soo jiidaysaa aydan aad ayay u farxaysaa. Waxayna ku dhahaysaa laba week maanan arkin. Aad ayaan ugu xiisay. Asigna inuu arka ma rabo. Kadib wadada ayuu ku arkay waxaan ku dhahayaa maxaa kugu dhacay. Saaxiibteedna waxay ku dhahaysaa adiga lee xaal wareyso. Kadib jaakadiisa ayuu u saaraya waxaan ku dhahayaa waxaad tidhaahday isbedel shaqo raadso noloshaada horumar gaarsii. Hadeertaan waan isbedel laakiin adiga maxaa sidaan u tahayne. Kadib ay soo jeesanaysaa hab ayay siinaysaa waxayna ku dhahaysaa adiga inaan ku arko kaliya xiisuu qabo maantan waan ku arkay waana ku faraxsanahay midaas. Kadib geedka lagu riixay ku fadhiisanaysaa waxayna dhahaysaa waan faraxsanahay. Maalin wiil ayaa wax baray sida wax loo sawiray yacni. Asigan wuu maseeraya wiilkiyana soo hor istaagaya. Wuxuuna soo xasuusanayaa markaas mar walba uu dhawaa wax baray. Kadib biyo soo qaadanaya sida sawirka sawirayso oo shubo. Aydan waxay ku dhahaysaa midaas ma sameyn kartid. Kadib wiilka wuu xanaaqaya. Asigan wuxuu ku dhahay wiiliyo ma iska tagtay ilfurma tahayne. Aydan waxay ku dhahaysaa anigoo wax ku barooya iska bax. Maalinta xigtan wiilka yaa la sheekaysana wuxuuna siinayaa invito. Asigan wuu u celinaya wuxuuna ku dhahayaa jaanis kuma hayso. Aydan meesha ayuu ka soo jiidaya. Maalaydo fikirayso caajisanayo u imaana wuxuuna ku dhahayaa maxaa kugu dhacay. Aydan waxay ku dhahaysaa wax inaan kuu sheeg maro meeshan iskaaga tag. Asigan isla markii uu fahmaya waxay u baahneed ayuu u keenaya. Aydan markay fiiriso isku naxaysa waxaan ku dhahaysaa sidee ku ogaatay midaan sideen ku soo gaday. Kadib wuxuu ku dhahayaa maamada dukaanka in su'aashiis weydii. Aydan midkan ayay soo siisay. Aydan inay xishooto ayay waxay ku dhahaysaa waan soo xiranaya. Kadibna jaakadiisa iyo gadaasheeda oo xiraya. Wuxuuna ku dhahay inaan qof ku arko ma baahni. Ilaahow nin sidaan nii fahmaynaysi okay. Maalinta xigta way u imaanaysaa waxayna u keenaysaa jaakadiisa. Waxayna ku dhahaysaa waan kuu keenay yarow aniga waxba ha igu sheegin hadda kadib. Kadib wuxuu ku dhahayaa miska bixaysaa wili kuma aan sheegin in aniga ku jeclahay. Ma ogtahayna midaas horta. Kadib waan ogahay ku dhahaysaa hab ayuu nasiina wuxuuna ku dhahayaa adduunka adiga ayaan ku jeclahay. Filimkeena quruxda badnaa halkaan ayaa ku dhamaatan kal dad badan waxay soo dhaafeen filimka magaciisa noo soo dir. Anigan filimka magaciisa ma xasuusan kar sababtoo 3 maalin 2 sac filin aa jarjaraa. Waxa ka soo dhigaa 10 daqiiqo ama 8 daqiiqo. Ma xasuusan kar walaa filimka intaan jarjaraa diyaarinayo hadina qof dhashooya ah oo ilmo heysata guri mashquulkiisa haayo waxba ma kala xasuusan karo. Marka sababa ka xumahay wala adin weeyaa waxaan idii lahaay. Bye bye.